labaad iyo mar saddexaad ba bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin illaa udwaana cala daalimiin hor iyo horaan marka koowaad waxay mudnaan u sugnaatay allihii inoo suurtageliyay shirkan intaas oo qof oo bulsho ah oo mataqaanaa dadka deegaanka inuu u qabsoomo baa aad ugu mahadcelinayaa waxaan marka koowaad naftayda iyo naftiina kula dardaarmayaa waa la kacabsiga ilaahay muxuu yiri wama khalaqtu jinni wal insa illa liya'buduun jinni iyo insa waxa inay caabudaan ahayn oo u abuurtay ma jiraan wax kale uma abuuran inay anigoo kaliya caabudaan ma aha marka waxa waajib ama masdina ku ah mar haddii bulshada inta leego sunnimi oo bulshada deegaan matalaysa aynu nahay aynu xusuusino la kacabsiga haddaan intaas u imaado waxaan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan halka rabaa inaan uga mahadceliyo superstarada role modelka qalasada Amaal Cabdullaahi waxay mudan tahay inay ku daydaan dhammaan gabdhaha gobolka Karkaar oo dhan intiina tan hadda in la idin sheego ma baahnidin ama in la idin faahfaahiyo waa gabadhi malcuunkii muusig juudanaha soo qaniimaysatay weeye ilaa iyo og socotay muuse maanta ma wasan yahay gabadhi tiri way goortii og tagtay waa dareemi karnaa intay halka ku jidhay qardhay ka bilowday 9 bilood bay halka ku jidhay hanti naf maal wax kasta waa ugu dhawaaleed anoo ku hadlaaya afka bulshada shire maanta waxaan ka hadlaaya halkan ka cadaynaynaa inaanu la dareenahay hormuudna ay noogu tahay kuna raacsanahay haddaan nahay bulshadii gobolka Amaal Cabdullaahi inay u gurmato walaalahood gobolka Sool ee reeraysa si khaatimo waxaan halka baaq ugu dirayaa dhammaan gabdhaha D5 power ama daarood ama gaarisaha joogeen ama goday ha joogeen ama jigjigaha joogeen ama qardhay ha joogeen ama bari ha joogeen meel kasta jiraan siday ugu gurmatay oo walaashood ilaa ay halka u socotay waa ogeedeen waxay qaaday raashin ay u geysay ciidamadii waxa way la u tagtay oo ka qayb gashay dadkii dhaawacyada iyo ciidamadii ku dhaawacmay meeshaas marka qoftaas oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo ka soo qayb gashay shirkan waliba iyadoo dana muhiim iyadoo lahayd annaga darteed uga soo tagtay inay noo soo qurxiso oo shirkan naga soo qayb gasho shirkan marka wuxuu daaran yahay haddaan inta ka nimaano Amaal iyo mahadcelinteedii wuxuu daaran yahay sida la inoo sheegay horumarinta bulshada magaalada tan waxa ka muuqata tabasho ba'an aad iyo aad u ba'an waxaa moodaa deegaanka degmada ay hoos tagto ee Qardho inay wax badan ku tabanayso haddana aysan ka helin waxyaabaha ma taqaan ugu muhiimsan oo shirkan aanu qabanay haddaanu dhalinyarada nahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka professorada ugu horeeya professor Axmed Cali Axmed Maxamed Cabdullaahi Yuusuf ku xigo iyo qayb kale oo halka ka maqan oo ay u suuroobi wadeen inay nagala soo qayb galaan fikirkaygii markaan ula tagnayna nagu soo dhaweeyay waxa iyaguna mudnaan gaar mudan labada urur oo haweenka oo ugu horeeyaan Fawzi Cali Xasan oo iyaduna safar aaday xaalad ku timi xanuun iyo maama Fawzi Maxamed Ciise oo labada urur haweenka ba iyagu nagu garab istaagay naguna dhiirigeliyay inaanu ka hadalno arrimaha bulshada dhalinyarta dhammaanteed waa isku tagnay fikirkaas waa ka soo tashanay xaaladaha badan oo ugu jira magaaladeena maanta inaan la socotaan iyo kala maaqaan biyaha waxa ugu dhow magaalada Qardho lowrka biyaha wuxuu ku imaanayaa $150 wax biya riga ama dhaaman ah oo ay ka qabatay hodman iyo baasaweyn ma jirdhay waxa ka soo xigta waa korontada waa aragteen tulashire xaalad koronto la'aan baa ka jira horumarin iyo tiknoolajiyad bay u baahan tahay waxaanu amar anagoo ka haysana odayaasheen inay shirka joogaaniin ururka haweenka joogaan dhalinyarada joogaan bulshada qaybaheedii kala duwanaa ay joogaan waxaan u sheegaynaa labada shirkadood oo galis iyo Samtel ka howlgala deegaankan inay xiraan inay degdeg uga soo qayb galaan shir hadii kale amar aan ku bixinayna 4 gudahood lagu damin doono shirkadaha haddaysan keenin horumarintii arrimihii bulshada aan laga helin oo ugu horeyso korontadu oo ay ku xigto inteenada meheradaha ku yaala ganacsiyo waaweyn baa ka furan mararka qaybtood dhibaato ka dhacda dadkana wada ogtiin oo telefoonada si alba wada isticmaalaa waa waxyaabaha ka hadalka u baahan biyo la'aanta ka jidha nadaafada ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada dhan ama caafimaad ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato la dagaalanka mukhaadaraadka ayaduna ka mid ah waxyaabaha aan rabno inaan ka hadalno waxaan u baahanahay tobalayimka magaalada dawladda hoose inay timaado gobolka Karkaar wadooyinka guryaha wax jira wada xumo baasan baa ka jira aad bay magaalada ma taqaanaa dhismaheedu iyo qaab formalka wuxuu yahay waxaan u baahanahay naga soo qayb galo waxaan u baahanahay solar systemki ama cadceedi koronto cadceed ah ama solar system ama ma taqaan motor ha ahaatee nooc doonto ba ahaatee baaqa kan aan durayno annagoo ku hadlayna afka bulshada reer Shire wuxuu u jeedaa ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Qardho Masarqaal waxaan baaq u jeedinaynaa gudoomiyaha gobolka Karkaar mudane Cabdi Saciid Dheere
waxaan halkan isagana baaq uga diraynaa taliyaha qaybta gobolka Karkaar mudane Xuseen Cali Daan waxaan kaloo isagana baaqaas u diraynaa gudoomiyaha saldhigga gobolka taliya Umar waxa ilaahay mahadiisa oo muhiimadda dhan shirku inta ugu xanibnaa oo aan wala Amaal Cabdullaahi isugayno oo loo shirka maanta dhayaal la furin aniga gogol gaar ah igu taala tii qadiyadii waa mataqaana arrimahaas oo ka midaysnayd midaan maanta ku kala fikir duwanahay oo aan gogoshu noogu taal waxay tahay waa la wada soconaayo waa xubin muhiim ah oo kamid ah urur siyaasadeed kamideeya oo kamid ah ururada Puntland khaasatan haddana urur ku soo baxay doorashada degmada gobolka Karkaar waa la soconaa Tuulashire waa meelaha ugu badan oo codka ugu badan uu ka helay ururka mideeya oo soo baxay waxaan u baahanahay ballanqaado badan waa helnay ballanqaadka inaysan maanta nooga damayn inta soo itaabsi codsigaas iyadaan u dhiibanaynaa waxaan rabnaa inay qaado ilaa degmadii gobolkii meel kasta ay mariso iyada warcad baanu ka sugaynaa maadaama ay tahay xubin muhiim oo ururka ka mid ah shirku dhammaantiin waana salaaman yahay adeegyada shirku intaas u koobnaa aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shiratan dhammaan dadka ka soo qaybgalay odayaasha ugu horeeyaan dhalinyarada culimada waxgaradka ururka haweenka mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahadcelinayaa aad baan u mahadsantihiin waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha halkan isugu yimi waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan si mugle u soo dhaweynaynaa himilada ay leeyihiin dhalinyarada ama bulshada deegaanka Shire Dhogor Libaax aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa baaqa ay la yimaadeen waxay ahayd annana aanu ku garab taagannahay inay la yimaadaan curin waxay tabanayaan inay la yimaadaan oo ku soo kordhinaya deegaanka maadaama ay yihiin bulshadii u kacday ummadda oo nasin lahayd dadka odayaasha ah rag iyo dumarba marka waxaan leenahay soo dhawaada xaq baadna u leedahay inaad ka hadashaan wax allaale wixii danihiinna ah mustaqbalka deegaankiinna ah intaa u dhalateenna weeye wax laydiin soo baray laydiin soo barbaariyey waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin arrimaha aad ka hadasheenna dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Shire waxay tahay arrin muhiim ah annana aad baan u soo dhaweynaynaa waxaa ka mid ah nadaafadda ay sheegeen nadaafaduna sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam an-nadaafatu nisful iimaan waa iimaanka barkiis ummad nadaafad leh oo ummad sharaf leh waa ummad iimaan leh taa markaan ka imaado waxay tilmaameen waxa loo yaqaan town plan magaalada in loo sameeyo qorshe magaalo aan guryaheedu nidaamsanayn magaalo ma aha mana noqonayso hadda way fiican tahay marka local government-ga waxa ka codsanayna dhammaan arrimaha kan oo kaleeto waa wixii Ilaahayna ku ogaal loona doortay dadkaan ay codkooda u bixiyeen xaq bayna u leeyihiin waxay codsanayaan kaliya ma waxay baryayaan ma حق بين وليين أدل الأمانة العهد الدين لمن له دين waxay dadkaanu codkooda inay maalaan kuna faa'iidaan dhammaan ajandayaasha halka ku yaal oo la dagaalanka mukhadaraadka ee tayeynta arrimaha bulshada waxbarashada kor loo qaado caafimaadka oo heerka uu joogo health boska kuma filla isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar waxaan u sheegaynaa health bos kuma filla war ma ku filaya kuma filla dumarku kuma filla waxaan ugu filayn dumarku waxa weeye xubinta ugu muhiimsan ee bulshada la nooshahay ama ay ku nooshahay dhibaatooyinka qabsada waxa adeeg lala aadaa inta qarna ugu sokayso ama meel kale oo aan ka weynayn kana tira badnayn dadkeedu marka muhiim jidda way suduwaha waxaan leeyahay tayeynta arrimaha bulshada oo ay ka tahay health boska oo la bedelo oo grade-ka ka sareeya la gaarsiiyo si ay u badbaadaan hooyooyinka dhibaatada habeen imaan loo haysato oo loola gudaayo miyi iyo magaalaba intaas aad baan u codsanaynaa marka laga hadlayo biyaha waxa jira ballanqaadyo fara badan bulshada aad buu maasanta dhalinyaradu arrinka curinta ah oo ay mar walba tabanayaan oo u muuqata iyaga maadaama maskaxdoodu firfircoon tahay in badan baa waxa laga ballanqaaday ceel halkan ku yaal in la qodo wali waa la qodayaa waxaan leenahay gudoomiyaha degmada dadkan waa dadkii codka aad ku fadhidaan dhamaantii la baxay iskama idin iman xaqooda siiya liwajillaahi siiya xaqooda siiya xaq bay u leeyihiin waxay shahaadayaan waxay baryayaan midna ma
markay laamiga taagnaayeen markay baadiyaha ka yimaadeen markay xoolooda ka yimaadeen markay dayaceen waxay idiin soo saarayeen inaad wax qabataane inaad miisas iyo xafiisyo fariistaan ilaahay sharcigiisa maaha lana aqbali maayo waana idinkala xisaabtamaya xaq bayna idinku tahay waa inay helaan dhammaan dadkaasoo tabashada ay tabanayaan arrimaha solar systemka ah caalamka oo dhan buu ka jiraa deegaamada oo dhan buu ka jiraa deegaamada oo dhan buu ka jiraa axmed si aan lagu galay adiga meesha waa la solar systemka magaalooyinka oo dhan buu ka jiraa iminka wuu hormaray waxaanu codsanaynaa oo deegaanku sida dhalinyaradu ay codsatay aanu ku taageersannahay in magaalada ay deegaanka degmadu ay soo siiso iyo gobolkuba ay soo siiyaan waxa solar systemka oo kan ugu dhowa waxba kaga baxayn taasna waan rajaynaynaa amniga in lagala shaqeeyo deegaanka amniga waa muhiim jiddan ah in la sugo oo la dhowro oo maxaa idin haya la yidhahda maaha waa in sida loo horumarin karo amniga loo hormariyo ajandayaashiina way idinku jiraan laakiin bandhigeedii iyo firfircoonideedii weli maanu hayno qof socdoo dacwoodo oo qardhacaada iyo qof qardha laga soo kaxayo la dacwaan u qabnaa iyo waxaasu wax caqligala maaha ciidanka amnigu ama boolisku shaqadiisu ma inuu xarunta kale ku kooban yahay mise inuu deegaamada la joogo mushaarkiisa buu qaataa lacagtiisa buu qaataa dadku way dhisan karaan saldhigooda way dhisan karaan jaalkooda way dhisan karaan laakiin haddii aan dawladdii dhaqdhaqaajin lahayd aanay dhaqdhaqaajin oo iyagoo contributionka la baxaya arrinkaas waxaa moodaa arrin naafo xagga dawladda ka ah iyo maamulka waxaan leenahay indhahaa la furo dadku waa dhisan karaan saldhigooda bay dhisan karaan gurigooda degmada dhisan karaan jeelkooda bay dhisan karaan waxa weeyaan aad iyo aad baan idinka sugaynaa inaad curisaan arrimaha xaqlidu ku leeyahay oo laydin weydiin doono yowma alqaa'i rabci xataa waa laydin weydiin doona muhiim bay arrintu u tahay arrinta internetka aad baa wax badan loogu tagtagay golis waa soo dhaweynaa golis waa shirkad aad u ballaaran weye maaha shirkad dhow oo miskiin oo hadba maalinta kufla kacaysa hadda ilaa sool bay si socota inta socoto waa garanayna waxaanu codsanaynaa oo cod baa ha ku codsanaynaa internetku ma shaqeeyo caalamkuna maanta wuxuu ku shaqeeyaa waa internet wax lama baran karo wax lama dirsan karo adduunka maanta waa la socotaa ganacsiga xataa internet buu galay wax adduunka halkan laga qabtaa ma jirto deegaanma nagu dhodhow ayaa iskale deegaanka ku dhow sida bulshada uga cabatay waa la qabnaa golis madaxdeeda sare boodhkeeda waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay wax uga qabtaan aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa dhalinyarada waxaa allaha barakeeyo dumarka allaha barakeeyo waxtarkooda waana iidsannahay وانا تاجرسنا وادي الله شقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت عن عستني وارون وانا وحلو باهي هي اسلامو هدي نوفوشان halkaas laga qaadaa kuwa badan baa dhig bax looga dhintay jidka inta la sii waday amseedka kiniini baa yaala waana laba qol sariir ma leh umulisa dhaqtarada ma leh waxa weeyaan horta marka ugu horeysa waxaan rabnaa in naloo qabto guri caafimaad dhig joojinta taal umulsad joogto sariiri yaaliin kow mar labaadka xiga baraagaha shire biyihii way ka dhammaadeen kulli way wada ooman yihiin dadka iyo dad badan oo ina ka maqanba maanta waxa laga yaabaa haddaan ilaahay u soo raxmad khayr oo degdeg oo raxmaduna siin jira hadday berri ama galabta deyn in haraad shire dhexdeeda loogu baktiyo matoorada magaalooyinka nala mida waxa yaala matooro hadda marar badan baa waxa la yiri matoor baa la idin sameeynaa welina ma aanu arag matoor degdeg baan rabnaa mar saddexaad magaaladayadu waa mugdi tuuladaydu waa jira 100 sano ka hor bay jidhay luuqa habeenka ma mari karo waxaanu isnaa ama madaxa la idin qaadaa waa mugdi waxaan rabnaa baalooyin degdega birahana meesha xero qorayo biraha yaal oo labada birood oo yaal xeryaha ay meesha ka oodayeen riyaha ku xareysnaan jiray ilaa maalinta aabahay dhashay iyo maantii laga taagay inta ka dhaxaysa aabahay baa ku xareysnaan jiray arigiisa ku xareysnaan jiray haddana waxa degtay shirkado meeshii waa uga guuray meesha oo laan mayaan waxaanu camanayno si degdeg ah haday noogu sameyn galabta waan ku caraabaynaa waan xiraynaa waan daminaynaa si degdeg ah waa in wax naloo ku qabtaa waa in maxay tahay solar naloo keena waa in biran naloo taagaa waa in matoor naloo sameeyaa aanu ka cabno inta been sheeg warma been baan sheegaya biyo ma haysana baraaga iyaga wallahi waa ma yin salaadi baan qabaa matoor ma haysano meel aanu cararo ma haysano xaj khayr way oo man tahay liba way oo man tahay haday biyo matoor noo yaalo waxa weeye waan tagay mid dusha ku qaatay mid gaari ku qaatay matoorada yadaan ka soo dhaansan lahayn caawa waxaan u dhimanaa waa qadaan ilaahay raxmaanaha ma soo waraabin
waa in matoor degdega naloo sameeyaa waa in xarun caafimaad naloo sameeyaa waa in iskoolkan ilmaha iyaga halkaan iskool baa yaalla magaalada reer miyi baana magaaladan miyi baa waxa way shirada gorlibaax baa asaasay gurigiisiibuu aaday waxa degay dad reer miyiya waa reer miyi waxa weeye guryaha yaalla reer miyi baa dhistay dadka jooga waa reer miyi iyo in magaalada u joogtay ilmaha markii galaaska 8aad uu noo gaaro waxaan geysanaa magaalada cidina nooma joogto islaam baan ku barinaa fiide iyo bariiska ma wada bixin karo waa in iskoolkaas si degdega waxaan ka codsanaynaa waa in naloo dhisaa dhammaantiin inta tan xalfadda ka soo qayb gasho ii yeeratay halkaan ummadda isugu yeedhay waad mahadsantihiin waxa weeye waxaan idinka codsanaynaa waxaan dawladda ka codsanaynaa iyo nimanka biraha kan halkan ka taagan magacooda ma garanayo reer baadiyaan ahay si degdega waa in wax naloo qabtaa oo si degdega waa in wax naloo qabtaa waa idin salaamay dhammaantiin ururkan iyo inta joogta dhammaantiin waa idin salaamay bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan inta meesha joogta rag iyo dumar nin walba meesha uu ka leeyahay waa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi golaha kan meesha la isugu yimi wixii lagaga hadli lahaa dadkii iga horreeyey baa ka hadlay hadday tahay aqoon-yahan iyo hadday tahay gabdho iyo dhammaan guddiba waxay la tahay waa ka hadleen cid lagu eedayn maayo cidna ku dacaadayn mayno anugu waxaan ka mid ahay odayaasha eedda loo soo jeedinayo waana leenahay aad baanu u leenahay maxaa koosgareeyey deegaanka kaadalkiisu annagu noo yaal haddana ima muuqdaan odayaashii weliba aanu aad u tabayno odayaashii hadday guddi dhisan ahayd hadday guddoomiye ahayd hadday cid kale ahayd dabcan waxaan u qabaa waxay qaab kale kuma maqneed dee hagihagi baa layskaga jiraayo sahamo iyo dad geeddi laabta ka ayo dadku waa reer guuraa laakiin waxaanu qiimaynaynaa oo la qiimaynayaa arrinta meesha la isugu yimi oo laga hadlay oo dhallinyaradu soo jeedisay way ku mahadsan yihiin cidda lala hadlaayey qaybina maamulkay ahayd oo dawladday ahayd qaybina waxay ahayd shirkadaha nala deggan oo deriska nala ah oo adduunku haddeer ku kala socdo oo isgaarsiin weeye waxaa adduunku ku kala socdaa lacag kaashi ma jidho sidii hore loo sheegay cid walbi waxay sahalka ka dirsato weeye waxa masaariifta u ah waxa ay cid ku xidhiidhiso hadday internet tahay hadday facebook tahay hadday biil tahay intaa waxa looga fadhiyaa shirkadaha halkaa biraha ku leh oo deriska nala ah oo ummaddu eeddeedu annagana saarantay haddii caawa wax yimaadaan deegaankaa ka mas-uula shirkadaha ah cabashada ka yeeraysana shirkaduhu way maqlayaan shirkadaha si dheer iyo si dhowba waa ugu sheegaynaa waxaa ka qabteen deegaanka maamulku waa maamulka iyagii xisbiguu doono ha ahaado ciddii markaa kursigaa ku fadhida baa deegaanka ka talisa ciddii markaa kursigaa ku fadhida weeye cidda deegaanka ka talisa guddoomiyaha waxaanu leenahay iyo xubnihiisa deegaankaana waa idiin baahan yahay wixii aad ka qaban lahaydeen degdeg bay idinka baahan yihiin dhinaca biyaha maalintii noogu dambaysay oo la liisgaraynayey dadkii codbixin lahaa madaxweynuhu waa noogu yimi halkan si adag baan ula hadalnay madaxweynihii noogu horreeyo shiro noogu yimaada buu ahaa maalintaa ceelka waa naloo dhagax dhigaayey axmed taaran oo xilligaa wasiira iyo in cabdulqaadir nin cadde intuba way la socdeen madaxweynaha maalintii waa naloo dhagax dhigay madaxweynaha dardaaranka aanu siinay waxay ahayd baraagu waa naga marnaayeen sida aanu maanta nahay oo kale madaxweynehu diraacda inaanu ka cabno waanu kaa codsanaynaa weli waa sugaynaa maamul eedayn mayno aflagaadayn mayno shirkada eedayn mayno laakiin waxqabadka meesha looga baahan yahay baa muhiim noo ah odayaasha deegaanka ka seexdayna kow baan ka ahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaa la yidhahdaa maryan maxamuud ciise maryan baylaa la yidhaahdaa maanta waxaan u soo gurmaday xaaji tuula shire waxaan ugu soo gurmaday adeegyada ay sheegeen oo ay u baahan tahay bulshadu wax wada muhiima baa laga hadlay ha laga hadlee waxaa la rabaa dawladdu laba inay mid yeesho weeye inay tiraahdo annaga shire nagama tirsana iyo shire inay halkaa waxay isu soo dhigto
labadaa waa la ogol yahay taas waa taas waxaa laga sugayaa dawladda madaxweynuhu ugu sarreeyo ilaa ugu hooseeya kan ugu hooseeya baanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaa badan intayan dhammaan tobnaad in la helo isbitaalkii in la helo layrkii in la helo goobii caafimaad in la helo adeega asaasiga aan waxba ka maqnayn haddii kale aan dayan ka tirsanayn qardho oo meel qardho bannaanka ka tahay waxa weeye waa goonideed gurigaana aan joogno Tuulashire maanta waa guri qardho ka tirsan waana guriyii hore xilligii qardho la asaasay marka waxaanu codsanaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Karkaar in magaalada si degdeg ah wax looga qabto ugu dhaqsaa badan teeda kale Angola kan anigu aan galabta sido Faysal Cali Waraaba wixii garow waan la tagayaa waxaan ku soo qabanayaa dawladda galabta kan Faysal haddana waxaan aadayaa og Faysal baan ku doonayaa Angola kan waxaan kaloo salaamayaa oo salaan kaliya laaba salaamaya gabadha la yiraahdo Amaal Cabdullaahi Axmed oo aniga meel qaaliya igaga taal oo halgamaaya gabdhaha reer Qardhood ninkay doonaan ha u dhashaan waxa la rabaa 10 gabdhood oo kale iyada la mid ah oo sidaa wuxuu raajay waxa kaloo la rabaa Amaal waad aragteen xafladda waa daawateen baan filayaa waxa uu yimi wiil abwaana siday u soo dhaweysay waa yaabay koofiyada iyo shaalka iyo adduunka xafladda cid la qabatay ma jiro kaligeeda qabatay marka iyadana waa ugu mahadcelinayaa annaguna waxa weeye waxaan rabnaa inaanan ka harin Qardho hadaanu tagno inaanu la kulanno in la yiraahdo xaaji khayr waa Qardho iyo Qardho ma waa in la helo adeega asaasiga hooyada dhiig baxaysa ha Tuulashire halmaan hadal kuma jiro Tuulashire hooyada dhiig baxaysa guri qolo meel laga taga caafimaad ma noqdo waa inuu dhakhtarka helaa waa inuu sariirta helaa waa inuu miiska helaa waa inuu daawada helaa maantana ma jirto afarta koonoo Qardhood ceelal baa ka qodan waxa la rabay ceelashaas in loo qaybiyo dalka waxa weeye waa in la sameeyaa halkaas waxa weeye waxa li haday taaliyo haday tubantaa waa taleeyo looma kala tago waxaan rabnaa in la sameeyo in la yiraahdo meesha shalow qaynaysa kala maanta soo daawaan rabaa wax kale aan rabo qanciya ma jiro hadaan ka dhishay dawlad ka dhashay hadaan dawli ahay oo dawladaydu dawlad awood la tahay wixii iga maqan hageeyeen xaaji khayr Tuulashire hageeyeen Tuulashire wax kale maqan iyo wax kale harsan midna ma jiro bishaasaan sugayaa intayn dhammaan ilayada waa la bilaabay insha Allah saasaan sugayaa idinkoo dhan way idin salaamaya hooyooyinka qaaliga odayaasha dhalinyarada gudoomiyaha waxa weeye inta aan ka tagona waa salaamaya awal ilaahay ina abuurtay baan mahad u celinaynaa madashaan quruxda badan isugu keenay iyo dhulkayga aanaadu jeclaa Tuulashire dhul badan baan ka jeclahay ilaahay bay ku noqotay amarkii inay maanta iyagu xasuustaan oo igu casumaan xafladda iga yeeraan waxay tabanayaan waa la tabanayaa waxa dhibayaana waa dhibaysaa waxa weeye Tuulashire hadda anagu tuulooyinka aanu soo Qardho ku leenahay meesha ugu dagaan qurux badan oo macnaha dhul la gaarsiin karo oo maxaan ku sheego wax laga qaban karo oo la magaaleyn karo way run ahaantii ma fahanti adeerkaygi maalintaas iyadana jannada raxma Allah siiye dhulka meesha ugu qurux badnayd buu qabtay anuguna run ahaantii waxaan maantay dawlad iyo meel kale iyo midna wallaahi billaahi tallaahi uma hayo waxaan aaminsanahay wixii Tuulashire maanta ka qabiyooba odayaasheeda iyo raggeeda dib dhigay dadkeeda baa dib dhigay asaan aaminsanahay ma garat jidka markaan soo socday jidka markaan soo socday baan ka anigu iskala hadlayay Tuulashire macnaha dalahaanteeda ama cabirahaanteeda ma garat marka waxaan daawad quruxay ragaagan dadaalahayn alla daawad quruxay ragaagan dadaalahayn daawad quruxay ragaagan dadaalahayn ma fahanti marka waxa weeye Shire in maanta la isweydiiyo wixii loo qaban lahaa walaa horta waa ayaan daradaasna waxay haystaa reer Qardhood oo dhan bay haysataa reer Qardhood oo dhan bay haysataa ayaan daradaasu waxa weeye in adeeradeeya magaalooyinka wadanka meesha ugu qurux badan intay qabtaanin oo naloo hagaajiyo aanu dadkayaga ay dhaleen oo ka tageen wax ka qaban weyno inay Shire maantay layr la'aan tahay
inay shira maanta biyo la'aan tahay inay shira maanta cusbitaal la'aan tahay inay shira maanta tahay meel laga guuray yaa raggeeda gabay hadduu qurba jiro iyo hadduu qardho gudaheeda joogaba waxa gabay maamuladii soo maray qardho oo kala horeeyay maamul kasta ha ahaadeen wuxuu yiri ninka la yahay Cali Dhuux wiilkaan eedada wahay eedada Amaal waxaan meesha u keenay waa reer mideeyay horta eedo waa mahadsantaa reer mideeyay waa aha ninka la yiraahdo qaala waa nin dhalinyaro waliba aad u wanaagsan yaa waxa hadda ka hor baa waxa dhacay jaamac baa la oriyay markaas waxa la yiri cadda yimiyo ka fiican markaas aanin ragii jaamac ka dhashay waa caddana ka dhashay qaal ma aha nin raganimo xun ma aha laakiin Cismaan Maxamuud buu ka dhashay warqaalow meeshaas waa la igu casumay inaynu inagu cid isugu dhownahayna waa la igu xagliyay cid ku sheegaysa maalintii lagu doortay baa la igu kaadamaysay adna waad maqlaysaa ilaahay baa igaga sareeya maalintaan la ascaanood aadayay ayaan maray ku booqday xafiiska u fariistay ilaa iyo maantay maalintaan la ascaanood aadayay maxaa ka damaysay mabil baa ka damaysay maalintii la doortay maalintaan la ascaanood aadayay igu horeysay waxaan qaalow ka codsaday yaa oo Cabdi Siciid oo ninka codsaday wiilashayadii baa tihiin in hooyooyinkii shire yaa la xaqiro oo shira la baabi'iyo hadda magaalo tuulooyinkeena inaga waa meesha ugu bilic fiican bilicdeedana idinka iskale ma fahanti haday qurux badnaato oo biyo hesho oo koronto hesho oo daawo hesho waxa weeye waa bilicdiini waa magaciini Cabdi Siciid waxa shira tabanayso yaa waxa shira tabanayso waa wax gurigaaga laga tabanayo ma aha guri kale laguna tilmaami maayo nin wanaagsan baan magarat marka waxaan idinka codsanayaa ilmaha rayaalow aniga madaxa ay saarantiin xariir baan ay tiin waxaan idinka codsanayaa yaa inaad soo faragelisaanin dhalinyarada yaryarka ah oo soo kacaysa waxa ay tabanayso inaad soo faragelisaanin oo waliba aan odayaasha lahayn ragga shira u dhashayo yaa daliya dibadba meesha joogtaan waa ay maqlaysaan ragga shira u dhashay oo ku barbaaray oo ku socod bartay yaa saliid baa ka soo saari kadhan alla waa biyo iyo koronto lagu xiray ma niidalita hala soo faragariyo shire awal baan caloosha ka tabaayay oo si socod ba ka tabaayay yaa oo aan isha ku hayay anigu meel kasta oo jirta hala dacwo qaado wiilasha yararka ah oo anigana soo qiimeeyay oo ii yeeray yaa hala soo faragariyo hadda maamulka mideeyatihiin iyo hadda maamulka kaahtihiin iyo hadda kan sinactihiin xildhibaanada ka soo baxay karkaarow wadanka indha u yeesha indhahana fura eedayn maayo gudoomiyaha waxaan arkay qardhoodho gudoomiyaha maagaysa ma maagayo anu wiil gaban oo reer dhaleen oo wax bareen oo la soo saaray oo akhlaaqiyan u dhisan neeba anaa soo saaray codka 4 saac u guureynay wixii ku dhaantaanin soo farageliyay ilaahu ma soo la rakeentaanin ilaahu ma intinaanka laga hadlaayo keentaanin waa dunka ka socotaanin hooyooyinkaanu kaashkoodi waa dhacay ma haystaanin ku shina wax ku gataanin sahalkaas wax laga diraayaa sahalku dab ma leh wadanku ma fahamtay anteena ma jirto biri lagama taagin golis isgaarsiinta oo waxa weeye hoos u fiiri wixii gobolka karkaar ka dayacan gaftigaad ku geyn kartaa waxa weeye ku soo geyn kartaa maxaan ku sheegay shirka waxa doonto ugu qaban karaa barkee shirkadda maanta noogu tuun weyn baata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh